sanay diagnosis yaan sameynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan Ramadaan Kariim ku soo dhawaada shabakada calanka Soomaaliya oo aad xilli walba uga barateen xogaha qarsoon iyo waliba wararka degdega ah ee dalka warbixinteena maanta waxaan ku eegi doonaa madaxweyne Farmaajo oo aflagaada qayaxan u geystay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geeli Xaaf iyo waliba maamul goboleedka Galmudug madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeedinaya munaasabadda sanad guuradii 76 ee ururkii dhalinyarada SYL oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay shirkii Garowe iyo sababaha keenay in la isku fahmi waayo madaxweynaha oo ka hadlay shirkii Garowe ayaa sheegay in qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geeli Xaaf uu doonayay in uu waqti kororsi sameesto taasina ay ka hortimaado dawladda Soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in uu markii hore Xaaf ka ogolaaday in dib u heshiisiin loo sameeyo garbaha isku khilaafsan maamulkaasi balse uu sheegay in uu dib iska bedelay markii laga soo hadlay meel ka baxsan shirka oo uu ula jeeday in ay ahlu sunna la soo hadashay madaxweynaha ayaa sheegay in daawada Galmudug ay tahay in aan waqti kororsi la sameeysan isla markaana la xaliyo khilaafka taagan loona diyaar garow doorasho cusub balse aysan marnaba suurtagal ahayn in Xaaf loo ogolaado muddo kororsi iyo maamulada kaleba madaxweynaha ayaa Xaaf ku eedeeyay inuusan qaadan daawadii ay u baahneed Galmudug oo ah in la sameeyo dib u heshiisiin iyo in la iska hilmaamo waqti kororsi madaxweyne Farmaajo oo ka hadlaya arrinta Galmudug ayaa ku kaftamay xaaladda ka jirta in ay la mid tahay sida qof xanuunsan oo loo baahan yahay saddex marxaladood in uu maro in marka hore isbitaal uu tago in la ogaado xaalkiisa in la baaro kadibna daawo la siiyo balse daawadii uu diiday madaxweyne Xaaf waa sida uu hadalku u dhigay madaxweyne Farmaajo qofka hadii uu xanuunsan yahay saddex waji ayuu maraa waa inuu aqbalaa inuu xanuunsan yahay oo uu isbitaal aado waxa u baahanahay uu yiraahdo xaaladdeeda inuu ogaado wajiga labaad in la fiiriyo xaaladiisa cudurka uu qabo iyo xaaladda uu ku jiro si loo daaweyn karo qaybta saddexaad waxa loo qoraa daawo arrinta Galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waan aragnay dhibka ka jira waan dhageysanay waan baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo ka bacdi doorashada in la galo madaxweynaha walaalkii ma aqbalin daawadii mana qaadan qofka marka meel yimaado waa xanuunsanahay daawo halaysi asaga laga rabaa in uu kala doorto daawadii inuu diido hadii la idin yar Galmudug lama xalin waa la xali waqti kororsi intaas ka badan waa in go'aan ka gaaraan dadka reer Galmudug madaxweynaha ayaa ugu dambeyn sheegay in ay dawladda Soomaaliya baaritaan ku sameysay dhibaatada haysata Galmudug ayna u soo baxday in lagama maarmaan ay tahay in dhinacyada Galmudug loo sameeyo wada hadal kadibna doorashada la qabto waqtigeeda waa markii ugu horeysay uu madaxweyne Farmaajo ka hadlo shirkii Garowe ku dhaxmaray dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada kaas oo lagu soo kala tagay iyadoo aysan jirin wax isfaham ah arrinta Galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waa aragnay dhibka jira waa dhageysanay diagnosis yaan sameynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan marka hadda choice-ku qofku markuu meel yimaado uu yiraahdo waa xanuunsanahay la ogaado oo daawada la siiyo choice-ka isaas kale inuu qaato daawadii inuu diido laakiin hadii la yiri Galmudug lama xalin waa la xaliyay laakiin waqti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer Mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fariistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo ka bacdi process la galo election saas looga gudbo wixii warar ee intaasi ku soo kordho waxa si toos ah uga socon doontaa channelkeena calanka Soomaaliya ha ilaawin subscribe haddii aad muuqaalka ka heshin like sidoo kale wixii fariin ama dhaliil aad inoo hayso inoogu reeb qaybta hoose commentiga la wadaag asxaabtaada waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalka tan iyo muuqaalkeena xig waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo Ramadaan Kariim